السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الملك joogtaan waa mahadsantihiin galab wanaagsan ku soo dhawaada bogeyga maare waxaa jira saaxiibo badan oo marar kala duwan ila soo hadlay oo ii sheegay inay rabaan in qisooyin noloshooda ku saabsan ay la wadaagaan ayaamihii hore aad baan ugu wareegi jiray oo waxaan aad uga gaabsan jiray inaan ka aqbalo laakiin ugu dambeyn waan idinka aqbalay qisooyinka kaliya ujeedadaan ka soo qaadanaynaa siday u kala saameyn badan yihiin waan soo qaadanaynaa mid kasta ma soo qaadan karno anigoo ka dambaysiin doona markaan idiin sheego kadib in yar oo talo ah oo aniga wixii ila gudboon markaas qofka qisadiisa aan u arko waxay la soo hadashay gabar Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool 2 bilood ka hor taqriiban 2 bilood ka soo wareegtay waxay ii sheegtay qiso ku dhacday iyada waxay igu tiri waqti aan reer wiil waxa jiray markaan qurbaha tagay bay igu tiri aan isbaranay oo xiriir uu dhex maray muddo 8 bilood aan wada xiriireynay kadibna waxaan go'aansanay inaan iskuursano sidii gabadh loo soo dooni jiray quruxda badneed uu soo doonay waan iskuursanay guriyaan degnay oo qurbaha ah markaan muddo wada noolay ninkii isbedel ku yimid bay igu tiri sayidadu ii sheegtay wuxuu bilaabay hadallo kulul aflagaado cay waxaas oo dhan waxay tiri intii oo dhan waan ugu dul qaadanayay oo anaa markii horeba diyaar u ahaa isbedel hadduu yimaado inaan intii aan ku fara adeegi karo reerkayga inaan ku fara adeego okay waxay tiri tii aan ugu dul qaatay oo sameeyay oo ka aqbalay ayaa magaalada markuu joogo oo uu saaxiibadii la kulmaayo wuxuu ugu sheekeeyaa ama u sheegaa xaaska tan anaa gacanta ku haya xaaska anaa gacanta ku haya anaa maamula anaa sidan yeela anaa kan qabta anaa maaragtay adiga hadallo qofkan anaa gacanta ku haya oo maamula amal ayuu saaxiibadii u sheegay bay ugu tiri kadibna waa ogtahay Soomaali war ma qariso oo wax qarsoomahay ma jirtee arintii way soo gaadhay waxay tiri waan weydiiyay aflagaado bay ugu jawaabay wuxuu yiri maartay anaa gurigan iskale anaa ku keensaday anaa sidan yeel waxaas adiga waxay tiri dhibaatan kala kulmay muddaan u samraayay aflagaado cay dagaal uu igu waday aniguna aan islahaa ninkaagi waayo isaga dulqaado aakhirkii waxay tiri waxay noqotay inaan go'aan ku gaaro inaan noloshan ku sii jiri karin oo aad bay igu adkaatay sida daraadeed waxay tiri muddo adiga 2 sano iyo bar aan isqabnay kadib waan kala tagnay oo sidaas uu reerkaygi uu iga dumay iyadoo tiri waxa ay weydiisay walaalaha Soomaaliyeed in Ilaahay calafka xigo oo ii noqdo mid khayr qaba okay taas intaas kaga baxaya Ilaahay walaashi waxaan leenahay wax khayr leh iyo si khayr la maarta kugu soo dhameeyo calafkaaga kan xiga oo ku soo ducaynayna okay lamaanayaasha waxaan rabaa marka inaan tala yar siiyo oo sidaan ku dhaqma ama sidaan u arkay inay qurux tahay dabciyan sidaan qurux maahan labada qof ixtiraam bay ku wada joogaan no one inuu qofna qof maamulayo ma jirto sababtoo waxa weeyaan gabadhan waxa gurigooda ka soo kaxaysatay iyadoo xor ah aabaheed iyo hooyadeedana kugu soo daray okay waxa loo baahan yahay inaad ixtiraam iyo jacayl ku wada noolaataan laakiin qofna qof ma maamulo horto qofna qof gacanta kuma haya mana maamulo qofkan rabitaankiisu kugula joogaa maalinta rabitaankiisu ka dhamaado ama khaladaadkaaga uu ku bato ama aad maartay khaladaad ka badiso waxa laga yaabaa inuu go'aan ka qaato qof kasta rabitaankiisu gurigan ku yimi oo ku dhistay oo ku jeclaaday oo aad ku wada joogtaan no one marka inaad dadka ugu sheekayso waana ceeb waxa adiga iyo reerkiina idin dhex mara inay magaalada u baxaan ama magaalada laga maqlo soo lamaanayaasha waxaan u sheegi lahaa lamaanayaasha Soomaaliyeed meel kasta joogaan ka digtoonaada inaad tiraahdaan qofkan anaa maamula anaa gacanta ku haya qofku hadduu ku jajaban yahay oo ku jecel yahay oo ku dhibrinayo taas macnaheedu ma aha inaad adigu maamusho taas macnaheedu ma aha inaad gacanta ku hayso taas macnaheedu ma aha inuu adoon ku yahay ee uu ku jecel yahay oo ku ixtiraamaya lamaanayaashuna ixtiraamkay wax ku leeyihiin xoog iyo dagaal waxa weeye qofkan ilmaha dhashay ma isagoo xor ah gurigoodii ka soo kaxaysatay isagoo xor ah ayaadna maaragtay haddii ay isfahmi weydaan uu ka baxaya no way wax oo geed kugu xiran ma ahan saadaraadii lamaanayaasha waxaan kula aad ugu talinayaa inay ka digtoonaadaan ereyga ah anaa qofkan maamula anaa gacanta ku haya anaa noloshiisa sidan yeela anaa sidan yeela
lamaanayaashu ixtiraam iyo jacayl bay ku wada joogaan gabadha Soomaaliyeed walaasheen waxa leenahay waa ku maasantahay qisada noo soo gudbisay iyo sida noogu soo sheegtay insha Allah ta'ala ana ilaahay carafka xiga mid khayr qaba kaaga dhigo halka waxa noogu soo gabagabowday qisadii koowaad aan idin soo gudbiyay saaxiib hadaad ku cusub tahay boggan YouTube-ka Maxamed Maare waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto like iyo comment-gana aad dhahdo waxaan idinku soo gudbin doonaa qisooyin joogto ah oo si joogto ah idinku soo diro oo dadka ii soo diraan anigoo gabagabadana wixii tala aan hoosta ku soo qori doona marka wada shaqeyn wanaagsan saaxiibayaal oo maasantiin ku soo dhawaada YouTube-kayga